Go. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكل ونكسن حوينتينا وحين كسو قادننا warbixin dheer uu wargeyska Foreign Policy ee ka soo baxay Mareykanka uu ku qoray qorshaha Trump ee ciidanka kala baxaya Soomaaliya iyo damaca loolanka dalalka kale. Wargeyskaasi oo shalay qoray warbixin dheer oo kaga hadlay qorshaha ciidanka Mareykanka lagu daadgureyn doono Soomaaliya iyo saameynta ay ku leeyahay karto iyo galaangalka dalalka waaweyn ee daneynaya joogitaanka mandiqada Geeska Afrika. bishii hore Oktoobar waxaa soo baxay inuu Trump ka codsaday taliyayaashiisa sare inay dib u eegis ku sameeyaan qorshaha lagu soo daadgureyn doono 600 ilaa 800 askar Mareykan ah ku soo Soomaaliya. Labadaas waxaa walaac xooggan ka muujiyay madaxweyne Farmaajo iyo dowladda Kenya waxayna Trump ku baaqeen inuu ka laabto go'aankaasi. Madaxweyne Farmaajo wuxuu tilmaamay in ciidanka Mareykanka door dhexe ama door wax ku leeyihiin deganaanshaha Geeska Afrika. haddii militariga Mareykanka ay ka baxaan Soomaaliya waxay taasi fursad noqon kartaa Shiinaha, Raashiya iyo awoodaha kale gobolka Bariga Dhexe kuwaasoo ka macaashi doona ka bixitaanka militariga Mareykanka. Warbixinta waxaa kaloo lagu sheegay in dowladda Shiinaha ay xiriir dhow la leedahay Soomaaliya isla markaana ay ka walaacsan yihiin deganaansho la'aanta Geeska Afrika. Bishii Febraayo sanadkan Al-Shabaab waxay weerareen shaqaale Shiineys oo waddo ka dhisayay magaalooyinka Lamu iyo Garsen ee dalka Kenya. Wargeyska Foreign Policy waxaa kaloo qoray haddii ciidanka Mareykanka ka baxaan Soomaaliya in laga yaabo inay soo kordhaan weeraradaasi. shirkadaha qaaska ammaanka ee dalka Shiinaha waxay saamin fursado ganacsi ay haatan ka wadaan Ethiopia iyo Djibouti waxayna dowladda Shiinaha awooddaa inay qandaraaslayaal dhanka ammaanka soo daabulaan si ay Al-Shabaab uga difaacaan maalgashiga imkaaniyaadka ama kaabayaasha halbowlaha waa sida wargeyska qoray. Wargeyska waxaa kaloo qoray in dowladda Raashiya ay ballaarin doonto galaangalka ay ku leedahay Geeska Afrika marka militariga Mareykanka laga daadgureeyo Soomaaliya. tani sanadkii 2016 dowladda Soomaaliya waxay Raashiya ka codsanaysay inay taageer ka geystaan la dagaalanka Al-Shabaab waxaana laga yaabaa in dowladda federaalka ay cusboonaysiiso codsigaasi haddii ay militariga Mareykanka laga daadgureeyo gudaha Soomaaliya. inkastoo aysan dowladda Raashiya doonayn inay ciidamo u dirto Soomaaliya balse waxay eegi doontaa bixitaanka militariga Mareykanka kadib fursad ay ku doonaysa laga ciidanka badda inay ka dhisaan Geeska Afrika gaar ahaan magaalada Berbera. bishii Janaayo sanadkan saraakiisha waaxda difaaca Mareykanka waxay sheegeen in Raashiya ku haminayso inay saldhig ka dhistaan Berbera iyadoo saraakiisha Raashiyaanka iyaguna ay sheegeen inay fursad tahay inay ka qayb qaataan tartanka caalamiga ee badda cas oo ay galaanka ku leeyihiin dalalka awoodda leh. dhinaca kale haddii militariga Mareykanka laga wada daadgureeyo Soomaaliya waxay kaloo taasi horseedi kartaa deganaansho la'aan inay ku lug yeeshaan dowladaha Imaaraadka, Turkiga, Qatar iyo Iiraan. wargeyska Foreign Policy waxaa kaloo uu qoray in Imaaraadka taageeraan dhaqdhaqaaqyada gooni-goosadka ee Somaliland iyo Puntland iyadoo Imaaraadka doonaysa inay ballaariyaan dekedaha ay ku leeyihiin labadaasi gobol. wargeyska Foreign Policy waxa uu warbixintiisa ku xusay in dowladda Iiraan lagu eedeeyo inay taageerayaan Al-Shabaab halka faragelinta Qatar ee siyaasadda gudaha Soomaaliya ay sii xumaysay musuqi awood la'aanta dowladeed ee Soomaaliya. wargeyska waxa uu warbixintiisa ku soo gabagabay bixitaanka Mareykanka waxay horseedi kartaa inay Soomaaliya la mid noqoto Yemen oo kale oo ay ku hardamaan 4 wadan ee kala ah Imaaraadka, Qatar, Turkiga iyo Iiraan. wadayaal xubinteen waxayna ku soo qaadanay xildhibaanad Ilhaan Cumar oo markale xajistay kursigii Koongareeska Mareykanka. Ilhaan Cumar waxay markale ku guuleystay kursiga ay hore ugu fadhiday ee aqalka wakiilada ee Mareykanka. Ilhaan Cumar oo 38 jir ah kana tirsan xisbiga dimuqraadiga ee dalkaasi waxay ka guuleystay musharaxa Mareykanka madow ee Leslie Johnson oo 66 jir ah kaasi oo ka soo xisbiga Jamhuuriga. labada musharax ku tartamay kursiga Koongareeska ee Minnesota waxaa la sheegay in Ilhaan Cumar ay heshay 64.6% halka musharaxa kale uu helay 25.9% sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AB. Ilhaan Cumar waa qofkii ugu horeysay Soomaali Mareykan ee ka mid noqda Koongareeska Mareykanka waana mid ka mid ah labada haween ee muslimka ee xildhibaan ka noqday Koongareeska Mareykanka sanadkii 2018. bishii la soo dhaafay Ilhaan Cumar waxay Donald Trump ku tilmaamtay cunsuri kadib markuu Trump iyadu ku eedeeyay inaysan Mareykan ahayn. Trump waxaa kaloo uu sheegay in Ilhaan Cumar ay jeceshahay Yemen isla markaana ay neceb tahay Mareykanka waa sida hadal ku dhigay. si kastaba ha ahaatee
dib u soo laabashada Ilhaan Cumar ayaa la filayaa inay darbaxa weyn ay ku tahay Trump. inteena ku xigta daawadayaal waxaynu ku soo qaadanaynaa Abiy Ahmed oo amaray inay ka falceliyaan ciidamada weerar loo geystay xero military. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa hadalkaasi ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka, wuxuuna amar ku bixiyay in laga jawaabo weerar ay xisbiga ka taliya gobolka Tigreega ay ku soo qaadeen xero ay ciidanka federaalka ku leeyihiin gobolkaasi. ku eedeeyay xisbiga Tigreega ee TPLF inay weerareen xero military oo ku taala gobolkaasi iyo inay isku dayeen inay bilqiistaan hanti military halkaasi yeelay. ciidankeena difaaca waxaa lagu amray inay qaadaan howlgalkaasi si ay dalka uga badbaadiyaan. waa lagu xadgudbay ama waa laga gudbay qadkii casa ee ugu dambeeyay. ciidanka waxaa loo isticmaalaa tallaabada ugu dambeysa si loo badbaadiyo dadkii dalka, ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya. ma uusan bixinin qaabka jawaab celinta, balse goobjoogayaasha ayaa waxay muddo isbuuci ka hor ka digayeen ismarinwaaga u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo xisbiga TPLF-ka inuu isku bedeli karo gacan ka hadal iyo colaad seeta dheeraata. xisbiga TPLF waxaa hogaamiya ciidankii la oran jiray EPRDF oo ah isbahaysi 4 xisbi oo dalkaas maamulayay ku dhawaad 30 sano ee lasoo dhaafay ka hor intuusan Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed xilka la wareegin sanadkii 2018. fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro qambeelkana furo si aad u hesho muuqaalo ku xiisa geliya mahadsanid. fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro qambeelkana furo si aad u hesho muuqaalo ku xiisa geliya.